imaarado midoobay kadib cabsi soo food saartay markii dambana helay xal ay ku wada noolaadaan iyadoo waliba uu qabiilku wali ku weyn yahay. waa maxay nidaamka xukun ee Imaaraadka Carabta kaasoo la gaar ah arrimo badan oo u baahan in la dul istaago. marka hore inta aynan guda gelin sida uu u shaqeeyo nidaamka xukun ee Imaaraadka aan dul istaagno taariikhda ka dambaysa asaaska dalkan maanta isku arkaa mid ku dayasho mudan. أن بلادنا الإمارات اليوم مثل النور اللي منور في أرض مظلمة قدوة للآخرين. dalka maanta ku faanaya daaraha dhaadheer ee caadka kulaalaya mar ayuu ahaa mid ku kooban tuulooyin iyo imaarado aan midaysnayn oo hoostaga Ingiriiska. xilligaas ma jirin dawlad dhexe, dhulkaana wuxuu ahaa mid ay degaan qabiilo Carbeed sida reer Baniyaas oo Abu Dhabi iyo Dubai deganaa iyo Al-Qasimi oo xukumi jireen Sharjah iyo Ras Al Khaimah. dadku waxay dhaqaale ahaan inta badan ku tirsanaayeen luulka iyo kalluumaysiga. luulka gacanka Persia wuxuu ahaa kan ugu qaalisan adduunka waxaana loo dhoofin jiray ilaa Hindiya iyo Yurub. muddadii u dhaxaysay 1820 ilaa 1971 Ingiriisku wuxuu gobolka u arkayay meel istiraatiiji ah oo ka ilaalin karo ganacsigiisa ku wajahnaan jiray Hindiya. haddaba si uu u sugo amniga maraakiibta shirkadiisii ganacsi ee East Indian Company ama British East India Company wuxuu heshiis la galay madaxda iyo hogaamiyaashii qabaa'ilka ee aagga gacanka Persia ama gacanka Carbeed. waxaana heshiisyada nabadgelyo ee Ingiriisku qabaa'ilka uu la galay loo yaqaan Trucial States al-Imaaraat al-Mutasaalixa. imaaradaha iyo sheekhyada imaaraadkana qayb ayay ka ahaayeen oo maxkamad Ingiriis ayaa loo tixgelinayay. sodomeeyadii qarnigii tagay dhulka maanta la isku dhaho isku tagga Imaaraadka Carabta waxaa ka taagneed xaalad adag maadaama markaasi uu dhaqaalihii luulka u burburay kadib markii Japan ay suuqa soo gelisay luul macmal ah. waxaana sidoo kale xilligaasi dunida ay la tacaalaysay dhaqaale xumadii weyneed ee loogu yeero The Great Depression. dhaqaale xumadaas oo Mareykanka ka soo bilaabatay kadib markii uu burburay suuqii saamiyada ee dalka Mareykanka bishii Oktoobar ee 1929. sanadkii 1958 shidaal ayaa laga helay Abu Dhabi, sidoo kalena Dubai ayaa laga helay 1966. aragti dhaqaale oo cusub ayaa soo ifbaxday oo ka duwan luulka iyo kalluumaysiga. dahab madow in la helay ayaana lagu alalaasay. Abu Dhabi waxay noqotay imaaradda ugu muhiimsan uguna hantida badan maadaama laga helay shidaalka ugu badan. haddaba sanadkii 1966 Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan ayaa la wareegay xukunka Abu Dhabi, wuxuuna la yimid aragti ka fog Abu Dhabi iyo fikir aan ku koobnayn hal imaarad. wuxuu rumaysnaa in awooddu ay ku jirto in la midoobo, asigoona bilaabay in hantida Abu Dhabi uu ku soo jiito imaaradaha kale. sanadkii 1968 Ingiriisku wuxuu ku dhawaaqay inuu ka baxayo gobolka. isla xilligaasna Iiraan ayaa sheegatay 3 jasiiradood, waxayna Iiraan qabsatay jasiiradahaasi 2 maalmood ka hor madax banaanida imaaraadka. haddaba arrinkaasi wuxuu soo dedejiyay in sheekhyada imaaraduhu ay ka fakaraan midnimo, waxayna ka cabsadeen haddii aysan iskaashan in mid loo qabsan doono. Sheikh Zayed iyo Sheikh Rashid oo kala xukumayay labada imaarad ee Abu Dhabi iyo Dubai ayaa ku kulmay teendho ku taalay halka lagu magacaabo Al-Samha oo u dhaxaysa Abu Dhabi iyo Dubai. waxay ku heshiiyeen inay midoobaan, markii dambena waxay midnimada ugu baaqeen ilaa 6 imaaradood oo kale iyo Qatar iyo Bahrain si loo yagleelo Imaaraadka Carabta. markii dambe waxaa midoobeen ilaa 6 imaaradood oo kala ah Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Qawain iyo Fujairah. waxaana calanka imaaraadka si rasmi ah looga taagay dhismaha midnimada ee ku yaala Dubai taariikhdu markii ay ahayd 2 Diseembar 1971. bishii Febraayo ee 1972 waxaa imaaradaha 6 ah 7 ku noqotay imaaradda Ras Al Khaimah. waxaana madaxweynaha imaaraadka noqday xaakimkii Abu Dhabi ee Sheikh Zayed oo maanta loogu yeero aabbaha iyo asaasaha Imaaraadka Carabta. imaaraduhu waxay ku heshiiyeen nidaam xukun oo cajiib ah oo ah federaal u dhisan qaab boqortooyo. ma aha dimuqraadiyadda galbeedka oo kale, mana aha keligii talisnimo ku biyo shubata hal qof, balse waa hanaan ay 7 amiir ee imaaradaha ku wadaagaan talada dalka, waana mid imaaraduhu isla ogol yihiin. nidaamka xukun ee dalkan wuxuu leeyahay heerar kala duwan. heerka ugu sareeya uguna awoodda badan waa golaha sare ee midowga ama al-Majlis al-A'la lil-Ittihad. dastuurka imaaraadku wuxuu qeexayaa in golaha sare uu yahay suldatul ulya ama awoodda ugu sareysa dalka, wuxuuna ka sareeyaa madaxweynaha, ra'iisul wasaaraha iyo baarlamaankaba. wuxuuna goluhu ka kooban yahay 7 xaakim ee imaaradaha midoobay. golahan wuxuu leeyahay awoodaha masiiriga ah,
sharci kasta oo federaal ahna ma dhaqan galo ilaa ay ayagu saxiixaan. iyaga ayaa doorta madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa 5 sano mar, waxaana mar walba madaxweynaha Imaaraadka noqda xaakimka Abu Dhabi. laakiin ma ahan qodob dastuurka ku qoran oo sharci ah, balse waa caado siyaasadeed iyo xaqiiqo soo jireen. Abu Dhabi waa imaaradda ugu weyn, ugu qanisan, uguna dadka badan 7 imaaradood, waxayna gacanta ku haysaa inta badan kheyraadka shidaalka iyo dakhliga dalka, waana meesha laga soo saaro ku dhawaad dhammaan shidaalka dalka Imaaraadka Carabta, iyadoona leh in ka badan 90% oo dhammaan keedka shidaalka dalka ah. inay tahay imaaradda hindistay midnimada laf-dhabarta dhaqaale ee dalkana ay tahay ayaa aalaba siisa awoodda hogaamineed, wuxuuna had iyo jeer madaxweynuhu ka yimaadaa loona doortaa qoyska reer Al Nahyan. laakiin xilka madaxweynaha sharci ahaan ma ahan mid dhaxal ah, waxaana mar walba la sameeyaa doorashada si loo muujiyo in midowgu uu ku dhisan yahay rabitaan iyo isogol. inkastoo la sheego in ay 7 xaakim ay siman yihiin, haddana marka la eego xaqiiqda siyaasadeed waa kuwa kale awood badan. dastuurku wuxuu dhigayaa in go'aanada muhiimka lagu gaaro aqlabiyad 5 xubnood ah, laakiin waa in Abu Dhabi iyo Dubai ay ku jiraan 5taas. haddii Abu Dhabi iyo Dubai ay diidmo muujiyaan, go'aanku ma fulayo xitaa haddii 5ta kale ee imaaradood ogol yihiin. waxayna tani ka dhigan tahay in dalku leeyahay 2 tiir oo go'aanka dhabta ah leh, awoodda veto-ga ahna dalka ku haga. Abu Dhabi ayaa madaxweynaha dalka noqota, halka Dubai-na ay tahay madaxweyne ku-xigeenka iyo ra'iisul wasaaraha dalka. golaha sare wuxuu ku guuleystay inuu ilaaliyo dheelitirka awoodda isagoona wax isbedel ah ku sameyn dastuurka tan iyo 1971. arrinta la yaab kale ee qusaysa golaha sare ee dalkana waa in weligeed aan la maqal go'aan ka soo baxay golaha sare oo ay isku khilaafeen 7 xaakim. khilaafka waxaa lagu xaliyaa fadhiyo gaar ah ka hor intaan shirka rasmiga ah la isugu imaan, waxaana wax walba ka horeeya midnimada oo qadcas ah. laakiin marka dibadda la eego, dalka aantiisa daneen uma dardaarwariyaan. marka Abu Dhabi iyo Dubai laga yimaado, 5ta imaaradood ee kale waxay golaha sare ku leeyihiin awoodo dhowr ah. xaakimka Cajmaan ama Fujairah wuxuu sharciyo u gaar ah ka soo saari karaa imaaradiisa, sida canshuuraha, dhulka iyo booliska gudaha, isagoo fasax weydiisan dowladda federaalka. laakiin sharcigaasi waa inuusan ka hor imaanaynin dastuurka guud ee dalka. heerka ugu sareeya waxaa joogaan Abu Dhabi iyo Dubai oo awood veto ah leh. heerka labaad waa imaaradda Sharjah oo leh miisaan weyn oo dhinaca aqoonta, diinta iyo dhaqanka, waxaana aad loo tixgeliyaa talada xaakimkeeda. 4ta kale imaaradood waa heerka 3aad, waana kuwa inta badan raaca jihada ay u qorsheeyaan 2 imaarad ee waaweyn, ayagoona taas beddelkeeda hela taageero dhaqaale iyo mid amni. imaarad kasta waxay qorsheyn kartaa arrimaha la xiriira horumarkeeda, dalxiiskeeda iyo mashaariicdeeda. tusaale ahaan, Dubai waxay diiradda saartaa ganacsiga xorta ah, halka Sharjah ay diiradda saarto dhaqanka iyo waxbarashada. inkastoo imaaraduhu hal dal ku midaysan yihiin, haddana golaha sare wuxuu ogol yahay in imaarad kasta ay lahaato hantideeda gaarka ah. tusaale ahaan, saliidda Abu Dhabi waxaa iska leh Abu Dhabi, ee ma aha hanti u dhaxaysa 7 imaaradood. sida uu qabo qodobka 23aad ee dastuurka, imaarad kasta waxay gaar u leedahay kheyraadka dabiiciga iyo hantida ku dhex jirta dhulka ama baddeeda. imaarad kasta waxay leedahay sanduuq maalgashi oo u gaar ah. tusaale ahaan, sanduuqa maalgashi ee Abu Dhabi oo ka mid ah hay'adaha maalgashi ee ugu waaweyn caalamka, waxaa iska leh Abu Dhabi si ay u maamusho dakhliga ka soo baxa saliideeda. dowladda dhexe waxay dakhli ka heshaa canshuuraha laga qaado shirkadaha saliidda ee imaarad kasta iyo canshuurta qiimaha, laakiin ma lahan awood ay ku sheegato lahaanshaha rasmiga ah ee ceelasha saliidda ee imaarad gaar ah. sharcigan qeexaya in imaarad walba ay leedahay kheyraadkeeda waa tiir ka mid ah tiirarka uu ku taagan yahay heshiiskii lagu dhisay midowga, si looga fogaado isku dhac dhex mara qoysaska iyo qabaa'ilka kala xukuma imaaradaha. nidaamkan wuxuu imaaraadka ka dhigay dal la moodo isbahaysi ganacsi, maadaama imaarad walba ay isku daydo inay korto iyadoo ilaalinaysa danaha guud ee qaranka. qabiilku waa mid saameyn weyn ku leh nidaamka xukun ee dalkan. imaarad walbana waxaa xukuma qoys ka soo farcamay qabiil gaar ah, waxayna qabaa'ilka waaweyn xiriirkooda ku xoojiyaan inay xididaan si khilaafka siyaasadeed uu yaraado, loona xoojiyo dhiigga iyo ehelnimada. waxayna dowladdu dhiirigelisaa dhaqanka miyiga iyo qabiilka si loo ilaaliyo aqoonsiga imaaraadnimo. dowladda dhexe ee fadhigeedu yahay caasimadda dalka ee Abu Dhabi waxay gacanta ku haysaa arrimaha guud ee ka turjumaya jiritaanka qaranka,
sida difaaca, siyaasadda arrimaha dibadda, garsoorka heerkiisa federaal, lacagta iyo bangiga dhexe. golaha wasiirada Imaaraadka Carabta ama Majlis al-Wazraa waa laanta fulinta ee dowladda federaalka, waana mid hoostaga golaha sare ee midowga. waa kuwa fuliya siyaasadda gudaha iyo dibadda ee dalka, waxayna diyaariyaan qabyo qoraalka shuruucda federaalka iyagoo u gudbiya golaha qaranka ama baarlamaanka ka hor intaan la ansixin. waxay dejiyaan miisaaniyadda sanadlaha ah ee dowladda federaalka iyo xisaab xirka qaranka, ayagoona dabagala heshiisyada caalamiga ah ee Imaaraadku saxiixay. ra'iisul wasaaraha hadda ee Imaaraadkuna waa Sheekh Mohammed bin Rashid, oo sidoo kale ah madaxweyne ku-xigeenka dalka iyo xaakimka Dubai. inta badan dalalka caalamka waxaa gacanta sare leh baarlamaanka, laakiin Imaaraadku baarlamaanku waa sida tala soo jeediye aan si buuxda sharci u hirgelin karin. baarlamaanka Imaaraadka Carabta ee loo yaqaano al-Majlis al-Wadani al-Ittihadi waa mid ka mid ah 5 hay'adood ee ugu sareeya dowladda federaalka. wuxuu ka kooban yahay 40 xubnood oo kaliya. 20 xubnood waxaa lagu soo doortaa doorasho dadban oo ay ka qayb galaan xubnaha gudiyada doorashada. 20 kalena waxaa si toos ah u soo magacaabaan xukaamta 7 imaaradood. kuraasta baarlamaanka si siman looma qaybsado, ee imaarad walba baaxadeeda iyo saameynteeda dhaqaale ayaa la eega. Abu Dhabi iyo Dubai 16 kursi ayay leeyihiin, midiibana 8 kursi ayay leedahay. Sharjah iyo Ras Al Khaimah waa siman yihiin oo midiiba 6 kursi ayay leedahay. saddexda imaarad ee soo harayna midiiba waxay leedahay 4 kursi. muddo-xileedka sharciga ee xildhibaanada dalkan waa 4 sano. inta ay xilka hayaana waxay xaq u leeyihiin inay wasiirada la xisaabtamaan, laakiin ma lahan awood madax bannaan oo ay sharci ku ansixiyaan, oo doorkoodu waa mid ku salaysan dib u eegis iyo la talin. kuraasta baarlamaanka ee Imaaraadka 50% oo ka mid ah waxa ku fadhiya oo leh haweenka, waxaana arrinkan la fuliyay 2019 kadib markii uu soo jeediyay madaxweynihii hore ee Imaaraadka Sheekh Khalifa bin Zayed, kaasoo geeriyooday 2022. haddaba si loo xaqiijiyo mar walba qoondada haweenka ee 50%, imaarad kasta kuraasta ay leedahay kala bar ayay u xirtaa haweenka. marka garsoorka dalkan la eego waa mid gaar ah oo u qaybsan heer federaal iyo heer imaarad. dastuurka Imaaraadka wuxuu ogol yahay in imaarad kasta ay doorato inay ka mid noqoto nidaamka garsoor ee federaalka ama inay yeelato garsoor u gaar ah. garsoorka federaalka wuxuu si buuxda uga shaqeeyaa imaaradaha kala ah Sharjah, Ajmaan, Fujairah iyo Al Quwayn, halka Abu Dhabi, Dubai iyo Ras Al Khaimah ay leeyihiin maxkamado u gaar ah oo ka madax bannaan nidaamka federaalka. waxaana xusid mudan in Abu Dhabi iyo Dubai ay leeyihiin maxkamado gaar ah oo ku shaqeeya luqadda Ingiriiska iyo nidaamka common law-ga, maadaama ay doonayaan inay ahaadaan xarun ganacsi oo caalami ah. marka laga yimaadana maxkamadda darajada koowaad, maxkamadda racfaanka iyo maxkamadda sare, waxaa sidoo kale garsoorka dalkan qayb ka ah maxkamado ku shaqeeya shareecada islaamka oo diiradda saara arrimaha la xiriira dhaxalka, wilaayada, guurka iyo furiinka. dhowaan Imaaraadku wuxuu sameeyay isbedelo waaweyn oo dhanka sharciga. da'da qaangaarnimada waxaa laga dhigay 18 sano, dhanka kalena waxaa la ogolaaday in dacwadaha qaar lagu qaado luqadda Ingiriiska si loo xoojiyo maalgashiga loona soo jiito ajaanibta. dalkan nidaam ahaan waa mid si weyn u xasiloon, laakiin waxaa si weyn loo dhaliilaa siyaasaddiisa arrimaha dibadda iyo faragelinta dalalka kala daadsan ee u nugul in laga dhex kaluumaysto.